ورحمة الله وبركاته. وأنا على عبد شكرية channel قاتي building construction and design. ما أنت دولا قولي هاي وحن برنا إن سؤالك صابسن about إيتاب. إيتاب كمرك لغش كيني يمرك قيبة بدن أيو إيتاب قولي هاي. maadaama qaybo badan ka kooban yahay marka su'aasha koowaad waxay leedahay war ETAB ETAB hadii lagu weydiiyo marka ETAB is extended three dimensional of analyze weeyaan oo building system marka saddexdaasaan marka intaas ay u taagan tahay su'aashan marka koowaad waa inta weeyaan talabaad hadii aan u gudubno waxay ka dhigan tahay marka su'aasha labaad hadii aan u gudubno xaqan ay ku qoran tahay marka su'aasha labaad ee la weydiin kara waxay noqon kartaa file-ka computer ku iska leeyahay marka maadaama isaguna uu computer file uu iska leeyahay computer ku marka file ku iska leeyahay maxaa was file format of ETAB la weydiin karaa the file format of ETAB is called EDB ama .edb baa la dhahaa waa su'aasha labaad ta saddexaad ee la weydiin karo waxa weeye what is the use of replicate command in ETAB maxaa loo isticmaalaa replicate command in ETAB ETAB marka lagu guda jiro macna kale kama dhignay replicate is used to make copy one floor to another ETAB kaaga markaad ku jirtid hadii aad guriga design garanayso dabaqay badan ka kooban yahay hal floor markaad samaysato floor ka umbaad copy dhihi inaad kolba history tagtid oo floor ka aad ku model garaysato waxa kaaga qurux badan hal mar baad select odhan ka bacdi marka historiyada markaad soo saxato hal mar baad replicate dhihi intaad copy garaysato marka faa'iidadaas ayay ka leedahay recommendigu su'aasha afraad ee lagu weydiin karo maxay was structural design should be marka structural kan ETAB faa'iidadiisu waa maxay inuu ujeedada aan ugu design garayno waa maxay loadka aan ku assign garanay has ability to sustain all load way inuu leeyahay has ability to sustain the deformation way inuu leeyahay has ability to resistance and misuse of the fire intaaba way inuu leeyahay awoodda deformation ku iskaga xajin karo loadkaagu iskaga xajin karo iyo awoodda uu misuse ka fire ka marka iskaga xajin karo intaaba waa inuu leeyahay marka waa su'aasha afraad su'aasha shanaad waxa la dhigi karaa which code book do we use for marka loadka marka inagu keemaan isticmaalna te marka wadan walba waxbu isticmaalaa marka inagu hadii jeer Ethiopian building code waxay ku salaysaa we use euro code 2004 waliba 2004 marka waa su'aasha shanaad ee hadii lagu weydiiyay possible tahay marka su'aalu way badan yihiin laakiin wax xumaan ka qorqoray su'aasha lixaad up to what height of wind pressure on the structure is considered to be uniform illa imso constant ama lagu aadin kara loadkaaga in Ethiopia building code refers that the wind velocity at 10 meter above 10 meter wixii ka sareeyaba trainka degreesto sida meelaha magaalooyinka maxaa la dhahay jigjig oo kale meelaha dhismayaasha dhaadheer ka jirin oo kale wind loadka waxa lagu apply karin kara 10 meter marka su'aashaasna waa possible su'aasha toddobaad oo very important aad u ah what is envelope maxaa la dhahaa envelope momentum in ETAB maxaa la dhahaa it is a diagram which consider ka soo dixkale or critical loading case loadarkan aad ku apply gareynaysay and the plot is inaad sawirto all positive and negative waa graph ahaan ku sawir graph markaad ku sawirtay graphkaaga aad sawiratay waxa laga yaabaa inuu down iyo up iyo waxa wada leeyahay maadaama down iyo up iyo waxa wada leeyahay maximum momentum value in a single diagram ka dhigi kara hal meel baa isku geyn karnaa waa isku midaynu marka it is also used in a design structure load case example hadan soo qaadano consider waxa tixgelisaa two span laba span baad haysataa labada span oo beam one span load mid load baa ku dhacaya and the other is unload ka kalena load kuma dhacayo then there will be a momentum halka momentum baa jir kara value no hada waxaan tixgelinaa consider both span are loaded hada labada load ba labada span ba inuu load saaran yahay then the momentum will be different marka labada span waxa laga yaabaa different distance inay leeyihiin load kuna inuu kala duwan yahay hadaba loadka kala duwani ma ogaan karno oo will not sure ma xaqiijin karno that is increase or decrease inay kordhayso oo inay decrease garoobaysa ma xaqiijin karno therefore the momentum envelope required in such condition marxaladda noocana ayaa waxa la codsadaa had iyo jeer marka maxaa la dhahay envelope marka macnahaas ayuu ku fadhiyaa su'aasha maxaa la dhahay toddobaad la isweydiin kara waxay tahay what is called meshing maxaa la dhahaa meeshtu wax aad muhiim ugu ah intaabka marka lagu jiro way muhiimada aan u socono waa inaan wax analyze oo loodasha dhan oo momentumka iyo wixii iyo shear force bending dhammaan markaan wada ogaana ayaan design hadaadan analyze odhanna design ma helaysid analyze hadii aad u baahan tahayna maash la'aantii ma helaysid marka midba mid buu ku xidhan yahay inaad analyze dhahdo design baad u baahan tahay design inaad hesho analyze baad u baahan tahay analyze inaad hesho
heshana mash baad u baahan tahay marka mash hadaadan meesha ku haynin lagama yaabo inaad wax analyze la dhaho hesho mash very important in tab if we do not make mash automatically mesh the floor area it is by default will noqon otherwise the analyze cannot be done infinite equation marka uu ka badan types of meshing marka laba shay un loo qaybiyaa the following manual meshing automatic meshing labada shay baa loo mesh gareeyaa marka faa'iidadaas ayay aad iyaduna muhiim ugu tahay marka aan ku jirno marka etaabka su'aashan kale ku xigta maxaa la dhahay sagaalaad what is called diaphragm had iyo jeer iyadna waa la isweydiiyaa oo su'aalaha hadda imika macalinku soo diray lafteedu ay ku jirtay marka what's called diaphragm maxaa la dhahay definition of diaphragm is to prevent relatively displacement of joint and the degree of freedom displacementiga ku yimaado jointiga iyo degree of freedomka ayaa waxa la dhahaa diaphragm marka ujeedada loogu apply gareynayaba waa inta weyn marka definition ugu saxsan badanka loogu isticmaala etaabka waa inta marka inaad displacementiga jointigaaga ay ka hortagto iyo degree of freedomka marka waa su'aasha ugu muhiimsan ee diaphragmka laga weydiin karo su'aasha tobnaad iyada lafteedu way ku jirtay si dadban what is mass source maxaa la dhahaa mass source is scale factors which means taasoo ka dhigan had iyo jeer waxa ka dhigan tahay how much percentage life load you consider intee in leg baad life loadka boqolkiiba tixgelinaysaa and how much dead load you consider iyo intee in leg ayaa tixgelinaysaa marka labada shay ee life loadkaaga iyo dead loadkaaga percentage intee in leg ayaa tixgelinaysaa marka la rabo mass sources baa lagu dhahaa marka intaas weeyaan faa'iidada ay u leedahay su'aasha 11aad what is load pattern maxaa la dhahaa load pattern wax kala ma aha is mainly simplified define load each by one itaabka markaan ku guda jirno shay walba inaad adigu aad samaysaa la rabaa markaad loadka aad qorayso ma life load ba ma partition load ba ma dead load ba ma super dead ba ma wind pressure ba ma earthquake ba dhammaan loodashaas individual ahaan baad u xisaabin marka loadka adiga ayaa gelinaya itaabka ileen markaad wax ku qorqorto ayuu ka shaqeyn karaa laakiin wax walba isaga kama sugaysid laakiin information sax ah si aad u gelisid nidaamka ayaa loo yaqaanaa waa nidaamka loo define gareyn karo life loadka iyo dead loadka iyo wind pressure-ka dhammaan lagu assign gareyn karo iyo wuxuu ka sii yahay marka su'aasha 11aadna waa nooca su'aasha 12aad oo aan filaya taa u dambayso su'aalo aad bay u badan yihiin laakiin intana wax ka soo qorqoray what's the load combination maxaa la dhahaa load combination isaga waa maxay means surface limit state iyo ultimate limit state markaan ku design garaysano surface limit state hadiyo jeer dee waan maradan waan soo aragnaa hadiyo jeer karaaga iyo waxaasay ka lagtahay ultimate limit state na maxaan isticmaalnaa hadiyo jeer inay collapsiga ku hortagto guriga collapsiga hadiyo jeer inuu gurigu aanu si kaliya iskaga dhicin collapsiga marka hadiyo jeer maxaan sameeynaa waa factor marka 1.3 dead load maxay waanaga kaga shaqeynay marka combination of both si dhab yar isku darka labadoodan ayaa waxa la dhigi karaa combination su'aalahani iyo kuwa kale oo ay jiraan way fara badan yihiin marka intaas ayuu inoogu joogi doonaa marka subscribe iyo share tana ku qabo waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan marka halkaas uu inoogu joogi doonaa cashirku marka subscribe iyo share adiguna ka ilaawin marka xagaas uu inoogu joogi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.